mid ka mid ah carruurteedii ayaa ku yidhi, hooyo saqafka guriga wuu soo dhici rabaa. Markaasi ayay qortay warqad, waxayna ku tiri wiilkeeda, ku rid meesha duleelsan ee saqafka. Warqaddii ayay wiilkii qaaday, waxa uuna geliyey meeshii duleelsaneed ee saqafka asigoo aan aqrinin. Saqafkiina intaas kadib wuxuu taagnaa 20 sano isaga oo aan soo dhicin. Hooyadii waa ay dhimatay, kadib wiilkii wuxuu jeclaystay inuu aqriyo warqaddii la dhahay meesha duleelsan geli. Wuxuu dhahay markii aan warqadda meesha ka soo saaray, saqafkii wuu soo dhacay. Kadibna wuxuu akhriyey wixii ku qornaa warqadda, waxaana ku qornaa, Ilaahayow adiga ayaa dhahay, Inna Allaha yumsiku as-samaawaati wal-ardi an tazuulaa, wala-in zaalatahumaa in amsakahumaa min axadin min bacdih. Ilaahay ayaa haya samooyinka iyo dhulka in ay dhacaan. Ilaahayow ee noo hay saqafka gurigeena. Ilaahayna wuxuu saqafkii hayay muddo 20 sano ah. waxayna ahayd sababta yaqiinteeda ay ku qabtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala.